wacan oo wanaagsan guud ahaan dhageystayaasha hawada nagala socdo dhageystayaal waxa aad ku soo dhawaataan barnaamijkeennii toddobaadlaha ahaa ee amuuraha Soomaaliya oo aad aalaaba kala socon jirteen radio wadajir radio Baydawa shabakadaha warbaahinta dafed.com ishabaydhabo.com iyo baydomedia.com dhageystayaal barnaamijkeenna toddobaadkan waxa inoogu marti ah Professor Maxamed Umar Talha oo ah xildhibaan hadda dawladda Soomaaliyeed iyo aqoonyahan Soomaaliyeed isaga lagu magacaabo Dr. Ali Xasan Cismaan oo ku sugan magaalada London ee dalka Ingiriiska. dhageystayaal sida aad la wada socotaan aalaaba barnaamijkeena waxaan ku faaqidnaa arrimihii ugu dambeeyay ee ka dhaca dalka Soomaaliya haday aan leeyahay xagga horumarada bulshada xagga siyaasadda iyo waliba howlgallada ka socda guud ahaan dalka Soomaaliya barnaamijkeena ayaan toddobaadkan waxaan ku faaqidaynaa xaaladihii ugu dambeeyay ee gobolada Koonfureed gaar ahaan gobolada Jubbooyinka iyo dhacdooyinkii ugu dambeeyay ee halkaas ka dhacay Professor Maxamed Umar Talha oo kamid ah xildhibaanada Soomaaliyeed ee haatan ku sugan magaalada Muqdisho ayaan marka ugu horeysa waxaan jeclaanayn inuu warbixin kooban naga siiyo haduu wax kala socdo guddigii uu madaxweynaha u saaray arrimaha magaalada Kismaayo ama guud ahaan gobolada Jubbooyinka Professor ku soo dhawow Professor maxaad nooga sheegi kartaa guddigii madaxweynaha uu magacaabay gobolada Jubbooyinka ee maalintii Khamiista ee laga hor istaagay inay gudaha u galaan magaalada Kismaayo Bismillahirrahmanirrahim markuu soo salaamayaasha wadadantii bahda midiyaha iyo jaaliyadaha Soomaaliyeed ee ku kala nool dalka Ingiriiska Mareykanka iyo dunida qaybaha kale ee naga dhageysanaya guddigaas uu magacaabay madaxweynaha una diray Kismaayo markii la soo celiyay wixii ka dambeeyay arrintiisu waxay ahayd mid dhammaan hay'adaha kala duwan ee dowladda midba aragti iyo si inay saameyn ugu yeelatay bulshada Soomaaliyeedna sidaas oo kale qaybaheeda kala duwan iyagana arrimahaasi hadalhaynteeda ay ku daran tahay balse dhinaca dowladda markaan soo koobo baarlamaanka Soomaaliyeed arrintaasi isagoo weli si toos ah aan uga hadlin haddana waxaa madaxweynaha ay disteen xildhibaanadu iyagoo guddoonka usii marinaya in sababihii ay ku dhacday in ergo madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya oo state ah si sharci asiga intuu u diray ergo oo markaasi laga soo celiyo isla markaasna lagu sameeyo waxa lagu sameeyay aan runtii ahayn wax waafaqsan nidaamka dowladnimo iyadoo halkaasina ay joogaan xoogag isugu jira kuwa dowladda taabacsan iyo kuwa dowladda iyaga ma aragtay gacan saar leh iyo laftirkeeda ciidankii qalabka sida ee Soomaaliyeed oo isagana si toos ah u hoos yimaada kala amar qaata dowladda marka arrimahaasi oo isqaban la ilaa iyo hadda ayaa waxay tahay arrin taagan iyadina aan baarlamaanka toos uga hadlin madaxweynahana aanu ka soo saarin war iyo bayaan cad balse arrintaasi wixii ka dhashay feedback aad u xun weli ay hoos taallo dowladda iyo inta kale ay khusayso iyadoo maantana halkaas ay ka degeen wixii iijaad ka socdo oo isla arrimahan dhacay iyagana sidii loo maareyn lahaa ay rabaan inay door ka qaataan Professor Maxamed Umar Talha aan ka dhaxgalo waxaad noo sheegtay in arintaas iyada ah ay aad u saameysay hay'adaha kala duwan ee dawladda federaalka Soomaaliya waxaad kaloo ka dhawaajisay in wafdi ka socda urur goboleedka IGAD uu maanta ka degay magaalada Kismaayo oo halka uu tagay si uu soo qiimeeyo ama wax uga ogaado arrimihii ugu dambeeyay
marka ugu horeyso bal aan ku weydiiyay magaalada Kismaayo ma magaalo arinteedu ay gaarsiisan tahay in ururka IGAD uu si gooni ah uga hadlo ama wax uga qabtaba ama waa magaalo Soomaaliyeed oo hoos timaada dawladda federaalka Soomaaliya maayo haddii aanan isyeelaynin Kismaayo inay tahay degmo ama gobol ama deegaan Soomaaliyeed oo ay maaragtay waajib ay tahay in arrinteeda iyo taladeeda iyo madaxbanaanideeda ay ka hadlaan dowladda iyo dadka Soomaaliyeed ee iyaga magac ahaan iyo muuqaal ahaanba aanan u baahnayn in loo micneeyo dilmakaasi iyada haatan doonaysa inay ogaato ama ay barato laakiin siyaasadaha isdiidan iyaga ay kala wataan dad markaa magac Soomaaliyeed wata oo had iyo jeer iyaga hadba baantay kusoo gabada xulufooyin kala duwan iyo magacyadooda kala wata ururo oo aan markaasi iyaga bayskooda dambe iyo ahdaaftoda markaasi aanan ka dumaynin masaalixda guud ee dadka deegaanka oo dhan ay wada kusayso dana markaasi gooniha ku dhisan dowlado oo hadda iyagana siyaabo kala duwan iyagana loolankaasi usoo dhexgalay iyagoo talo iyo xeelado iyo wejiyo kala duwan iyagana adeegsanaya dowladii oo iyada laftirkeeda mar hore fududaysay in isbarbaryaacaasi uu ka jiro gobolka ayagoo loolamayo keliya cid weliba inay ayada u hesho fursad gobolkaasi oo ku caanbaxay khayraadka dabiiciga ah qaybihiisa kala duwan ee hodanka uu ku yahay ama ha noqoto bad haddii loo baxo ama haddii beri loo baxo ama haddii dhan kasta loo eego ee dalxiis la yidhaahdo intaba ayagoo qolo weliba ay doonayso inay ayada gacanta ku dhigto oo danaheeda gaarka ah ay wadato tab kasta iyo xeelad kasta iyada ay ku hanan kartana ay samaysanayso cid allaala ciday u aragto Soomaali iyo qof aan Soomaali ahayn cidii iyada u fududayn karta inay gacan ka hesho si ay u gaarto yoolkaasina had iyo jeer ay tahay waxa saxanaha taariikhda 20 sano ee soo socday Soomaaliya sharci la'aanta iyo fawdada ay ka taagneyd aan arkaynay in marba qolo maaragtay iyada calanka meesha ka taagaysay ayagoo marna magac jabhadeed wadata marna ayagoo magac beeleed wadata mar ayagoo magac isbahaysi wadata mar ayagoo magac urureed wadata marka maantana waxay taagan tahay ayadoo dowlad ka tirsan dowladaha geeska Afrika oo kusoo gashay magac oo markaasi AMISOM dagaal laga siiyey ee ka turjumaya inay Soomaaliya gacan ka siiso kooxaha maanta ee ku caanbaxay in Soomaaliya nabadgelyo la'aan iyaga ay ka ridaan bariskana saameyn ku yeelatay arrintooda in haddana ujeedadii loo yimid mid ka baxsan oo haddana gaartay ilaa heer inay iyagii la yidhaahdo waxay samaynayaan maamul oo aanan u haysanin mandate in meesha ay ka taagan tahay marka isbarbaryaacaasi loolankaasi siyaasadeed mid amniyeed mid dhaqaale mid bulshadeed ayaa waxaa jahawareer uu geliyey guud ahaan deegaankaasi dadkii asal ahaan ku noolaa ee rasmiga ah ee loo baahnaa inay taladooda u madax banaanaadaan iyo dowladii Soomaaliyeed ee ayada inay u arrinsan lahayd waad mahadsan tahay Professor Maxamed Cumar Dalxa waan ku soo noqon doonaa dhanka kale Dr. Cali Xasan waad maqashaa xildhibaanka waxyaabaha uu ka dhawaajiyay magaalada Kismaayo waxa ku sugan dabcan xooga kala gedisan magacyo kala gedisan wata waxa kamid ah ciidamo lagu sheegay inay ka tirsan yihiin dawladda federaalka Soomaaliya oo uu horkacayo nin lagu magacaabo sida lagu maqaalaa General Saxardiid mar haddii ciidamadii dawladda ay halka ku sugan yihiin sidee bay ku dhacday in wafdi dawladda ka tirsan loo diray magaalada Kismaayo laga hor istaagay inay magaalada galaan mise dawladda federaalka lafsidaanteeda ayaa wajiyo kala gedisan leh oo qaybo kala gedisan ku kala socoto ku soo dhawaad Dr. Cali Xasan
الرحمن الرحيم حلمان سؤال من مقليني waxaan u maleynayaa waxaas arintu wadaas waa ka baaxadeen tahay wadankan wuxuu ku jiraa saan u maleynaynaa ixtilaal oo hoose aan weliba la sheegin oo qarsoodi ah laga soo bilaabo 1993 maarso ama March saa u taqaanaan waxaa jira United Nations Chapter 7 qodobka 39aad 40aad 41aad 42 ayaa sabab looga dhawaaqay arrintaas waxayna ahayd 15 urur oo qabiil ah meesha isugu yimid dowladda Itoobiya carqaladeysay maalintaas wixii laga bilaabo Soomaaliya marka waxay ku jirtay ixtilaal ama wasaayid qarsoon ay ku jirtay arrinta marka waxay ka turjumaysaa wixii soo socday muddadaas Soomaaliya waxaa loo bisleynaa inay isdhibto oo la maamulo waxaa jira waa dad madax adag waa dad badan waa dad aakhiraadkoodana laga heshiinin waxba lagulama xisaabtami karo marka saa daraadeed inay maanta jabhada maamulaan iyo Kenya hadda sharciyada ay meesha ku joogta hatta AMISOM ma sharciyeysna meel lagu sharciyeyna ma naqaano wadanka ay ka timin naftiisa xildhibaanadooda yaa noo sheegay in ay xataa ka haysanin maartay mandate ka haysanin ay ku soo galaan wadankaas lama soo ansixin baarlamaanka Soomaaliya ay marin AMISOM goorta la saaro waa ogeyd madaxweynihii hore ee Sheekh Shariif waa tukaadlay markii dambana arrintu waa iska qabowday marka dalkan ixtilaal oo adeer ku jira arrintu xildhibaanka sheegay isbarbaryaca kaliya maaha waxaasi wax ka daraa la sugayo wadankan gacanteena waa ka baxay waxay u taalaa ummadda Soomaaliyeed si oo gaashaamo lahayd marka waxaan ma sahlana khayraadkeeda la rabaa in la boobo oo haddaba la boobay laakiin si cadaan ah rabaa markaan in loogu dhawaaqo oo wadankan 10 sano oo soo socota loo dhiibay iyada loo dhiibo ayaa qorshe yahay waana cadeymo fara badan oo hayna xildhibaan dalxa haye maxaad ka oran lahayd hadalka Dr. Ali Xasan عفوا وما سيهاي دكتوركو سيدة ربا مع وحي الله هاي دوي كدومي أبار أسي نسكوير بدي بمعنى جيت كوين لوكا دوي باي معسي iyo carasanka uu ka baxo aadka u weyn marka uu doy ku dumo waxa caada iska in abooro dhan isku yimaado oo markaasi mid xididka ku dhaga mid laanta ku dhaga mid maarta caleenta ku dhaga mid darfaha marila asaga oo xabad uu maarta dhulka uu uga dhigo marka haduu sandoy ku dumi lahayn maarta geedkaasi weyn ma dhacdeen inuu aboor horta sida uu galo Soomaaliya hadda sidaas oo kale dugubday ku dumi ayay noqotay oo hadda aboorna ila isku yeertay in wala waliba siday doonto inay ku hamiso ay u timaado hadafka ay leedahay iyo istiraatiijiyada iyada ay wadato inay ka fushatana dadkeeda u fududeeyay ayirkiisay maayo haddii Soomaali dadka meesha ayaga ku nool iyaga Soomaalinimadooda lagu ixtiraamo inta degan inay maamul inay ayaga ay samaystaan hadiiba dawlad markaasi ay gacanteeda iyada inay wax ugu samayso ay heli karto fursadaasi tiina ma aysan dhicin dadkii Soomaali u dhashay laftirkooda ee magaca qarannimadana wax ka sheegta ayaa ahaa kuwa hadba intay ayaga isbahaysiyo samaysta dawladaha la tuhumayana dabada la gala hadba markaasi kadibna ayaga oo yoolkooda u yahay kaliya reer hebel ayaa meesha ka talinayo iyaga ayaa arinta gobolkaasi u ah hormuud ayaa hadba wixii ayaga markaasi u fududeyn kara ama dawlad doonayso inay ixtilaal ku samayso ama mabaadi ku qotonta in la burburiyo dalkani hawataano dadka Soomaaliyeed horta haddaysan ayaga ku daadnayn ma dhacdeen waxa ka dhacayo goboladaasi kaliya maahan Soomaaliya idil marka maanta horta in dad kale la eedo waxa ka horeysa anaga inaan sheegno oo anaga isku canaanano maxaa dalkeena anaga weliba goboladan koonfureed ee iyada meeshii Soomaaliya barwaaqadeeda iyo bilicdeeda iyo magaceeda iyo populationkeeda
wax waliba la oran karay iyaga ayaa maaragtay priority maaragtay haddana inay noqdaan goobaha aan maanta marna degin had iyo jeerna loolanka siyaasadeed kan dhaqaale kan amniyeed kan bulshadeed ka taagan cid walibana ay u fududahay inay faraha la soo gasho qolo walibana ay ku hamiso inay maamul u dhisto oo reerkeeda hoos tegaya ama ay u samaysato xulufo oo ayaga beeshooda maaragtay iyada u danaynayso ama dhaqaale ama iyada dibadaha meel waliba iyada ay u marto arrin iyada ay markaasi ku haminaysa inay mar maaragtay iyaga ay noqdaan dadka si kastaba maaragtay ugu suurtooda dhaqaalahaasi haddii la boobayna boobka wax ku yeesha haddii la dhacayna dhaca wax ku yeesha haddii ummadaasi madaxa looga istaagayna dhinacooda kaga istaagta dadka horta arrimaha lagu fulinayo mar waliba waa dadka magaca Soomaali nala sheegta laakiin dhaqanka ay ku dhaqmayaan aanan Soomaali shaqo ku lahayn marka asagoo runtii waxa uu tilmaamayo doctorka aan arkayno inay hadafka kama dambaysta ee dadka kuwa soo adeegsanaya ayaga ay tahay laakiin aniga waxaan rabaa indiyay ama masaari ima aadan goyseen haddaadan geedkayga kugu daabnayn amisaan horay uu iribo dababdoyki dumi aboor usi iniski warbidi mahadsanid Professor Dalxa haddana waxaan ku wareejinayaa saaxiibka Yaasiin Abikar oo ku sugan magaalada Toronto si uu noogu sii wado qaybaha kale ee barnaamijka Yaasiin adile waaye waad maadsantahay Cabdicasiis Professor Maxamed Cumar Dalxa aad iyo aad ayaan kaaga mahadcelinaya waqtiga qaali aad nafisay waxaan jeclaan lahaa inaan dhowr su'aalood ka weydiiyo xaaladaha ka jira dalka Soomaaliya waxaan jeclaan lahaa mid ugu horeysa sida aan la wada socono waxa tahay xildhibaan ka soo jeeda deegaanka Shabeellaha Hoose Shabeellaha Hoose waxa ka jira muran badan oo ka taagan halka uu raacay lahaa maamul goboleed ahaan Shabeellaha Hoose marka aad fikrad ahaan maxaad aaminsan tahay in gobolka Shabeellaha Hoose lagu daro dhinacan banaadir mise waxaad aaminsan gobolka Shabeellaha Hoose uu taagnaado lixii gobol marka hore ahaan jiray وما سبب ياسين runtii duruufaha Shabeellaha Hoose waxa kama duwana waxa jubooyinka ka taagan kaliya dawladaha qaarkood ayaan weli maartay soo ku baarinayaan sababtoo ah waxa iska jira siraac qabali iyo siraac oo laftirkiisa xulufaysiisa dadka Soomaaliya aan sheegayo wax la mid ah oo qolo waliba istiraatiijiyad dooniya iyadoo wadata markaasi qaabkii ayada gobolkani ay u hanan lahayd ama iyada markaasi u maqoonin lahayd dadka asal ahaan deegaanka maartay degan ee loo baahan yahay taladooda inay u madax banaanaadaan ama maamulkooda ayaga sida ay ku heshiiyaan inay u dhistaan sida gobolada kale aan loo ogolayn marka loolankaasi ayaa maanta wuxuu qayb ka yahay in sida Soomaaliya ka socotaba in hadiya jeer aan aragno Shabeellaha Hoose oo asagana maamul oo cayihiisa ku istaaga oo heshiis lagu yahay oo dadkiisii oo dhan ay raalli ka yihiin inay adkaatay iyadana si loogu dhiso sideeda degmo waxaad arkaysaa dadkii deegaan ahaan ka soo jeeday ama ku noolaabo wax aanan iyaga oo haba yaraatay shaqo ku lahayn inaad arkaysid in hoteelo ama meelo oo markaasi munaasabado loogu magacdarayo in ay dad maamul ayaga markaasi goboleedyo ay la baxaan markaasi dhowr xuruufood ayagoo markaasi gobolkii ku biirinaya maaragtay hadafka ay markaasi magacaasi ay la baxeen ama ha ku daraano mid bari ka timid ama ha ku daraano mid galbeed ka timid ama mid koonfur ka timid waqooyi hadda aanan shaqo ku lahayn waana waxna kala socon aqoon-yahanadoodii odayaashoodii dhaqanka siyaasiyiintoodii qeybaha kala duwan ee bulshada maaragtay ha noqoto xataa kuwa civil society ayaga ugu jiro maalin walba aad arkaysid fiidyo la sheegayo oo magaca markii lasoo qaado Shabeellaha Hoose aan ka maqnayn marka Shabeellaha Hoose waxaad moodaa in cusbada raashinka lagu maceysto oo kale in qoladii doonato inay maanta rabto inay wax meel ayada ay lugta la gasho oo xoogaa khayraad lagu tuhumayo sida Kismaayo oo kale oo iyagana gobolada hadda sidaan soo sheegaynay la isku haysto calaashaan khayraadkeedii kaliya meesha la rabo in cid la wareegto iyada markaa halkaasi ay si
gaara ama si qaab beeleed ama si qaab diineed ama ureed ama magaca iyada eerata hala soo maartay baxdo inay iyada ay markaasi lugaha hafidsato oo halkaasina ay ka dhigato meel iyada markaa wixii iyada ujeedadeeda ay ahayd ama mid dhaqaale ama mid siyaasadeed markaa ama mid markaa arrimo kale ee laftii halmaala meeshaas ay kaga dhigato bartilmaameed waxaasoo idil ayaa waxay yihiin shabeellaha hoose iyagana qaska ka jira oo marna aan jaanis loo ogolayn inay dadka 8 degmo ku nool kala iyaga ay leeyihiin ama ha noqoto xataa dawladdu ama ha noqoto cidii kale ee markaasi fursad u hesho inay iyada maartay halkaasi gacanta ay ku hayso mar waliba qoladii isku dayda inay tagto inay iyada ay la soo baxayso barnaamij ay la ogaara oo dan markaas iyada ay leedahay ay doonayso inay gobolkaasi ay ku maamulato wixii yaalla ee kheyraad ahna farqa ay ku shubato dadkii deegaankaasi ku noolaana ay u noqdaan nadan oo mar waliba iyaga hoos yimaada Professor Dalxa guud ahaan sida aan ka warhayno beelaha Jareerweyne waxa ay degan yihiin 9 ka mid ah 18 gobol ee dalka Soomaaliya haddana 9 gobol aan soo sheegnay wax muuqaal ah kuma laha maamulada loo sameeyay degmooyinkaas ay ku nool yihiin arintaas maxaa ku macnayn karnaa ma arin ay hoggaan la'aan haysaba mise waa arin jirta oo mid mataqaana isku xirnaan la'aan ay dhexdooda wallahi horta beelaha Soomaaliyeed guud ahaan maanta kama wada sinna waxyaabaha wadanka dhacaya runtii inta fursada u heshay iyada inay wax dominad galayaan kuwa fara badan oo aan Jareerweyne aan ahayn haddana deegaanada ay ku nool yihiin barkumataal maaragtay arrintooda ay tahay ayaa iska jira inta maaragtay nasiib ay u heshay maaragtay inay iyada awood ciidan ama dhaqaale ama bulshadeed inay iyaga wax ku maamulaan ama mid aqooneed ayaa horta waxay yihiin dadka Soomaaliyeed hadda dhibaatada ku ah maxaa yeelay haddii Soomaalida isku tixgeliso diinka dalka iyo dadnimada waa la isla garanayaa gobol waliba iyo degmo waliba iyo tuulo waliba dadka ku nool waxay ahaan lahaayeen kuwa iyaga isku tixgeliya hadba sida ayaga markaasi ay isu raaci karaan meeshii beel ku yar beel baa ku badan meeshii beel ku badan beel baa ku yar waliba sida ayaga raalli iskaga yihiin ee markaasi iyaga ay rabaan inay wax u dhigtaan ama isugu aramiyaan ayay horta arrintooda taladooda ay markaasi isku raacaan ayaa lagu qiimayn lahaa maanta laysma tiriyo oo hebel baa badan iyo hebel baa yar ma arkaysid maanta layskuma qiimeeyo yaa wax soo saara iyo yaa wadanka wax soo geliya yaa qayb midle ka ciyaara oo lagu qadarin karaa layskuma qiimeeyo size of land intee gobol baa dadkan ay degaan ama imisa ma aragtay baaxad dhul markaasi leh tayo iyo maaragtay tiro dadka ku nool ee loo baahan yahay in ay kaga qayb galaan siyaasadda dalka awood qaybsiga qaybinta maaragtay kheyraadka dalka waxaasoo dhan idil waxaa moodaa waxaa ka sareeya nidaamkii maanta baadiyaha law of jungle berigii hore ka jiray in allaala ninkii xooglahow adiga xabaq la gooso marka maadaama dadka Soomaaliyeed intii nabadaba jecel oo reer kasta ama beel kasta ha kasoo jeedaan ama gobol waliba ama deegaan kasta waxay yihiin kuwa iyaga arrintaasi ku ciilan ee aan haba yaraatee helin qadarin bulshadeed qadarin dhaqaale qadarin maaragtay siyaasadeed ee had iyo jeer inta qaybisa ee indhacadaysa ee xooga wax ku raadisa ee fadqalada wada ee wax burburinta maanta ku fiican inay iyaga mudnaan ay leeyihiin sida maahmaayaha qaarkood oo Soomaalida ay ugu kala duwan yihiin oo dadna inay maahmaaha ay u tahay aad dareemaysid afdaboolan dahab halka dad kalena ay maahmaaha ay u tahay qaybsaan maqado iyo ku qabso qadimaysid iyo inda adeeg waa ra'sumaal ma garatay iyo nin iimaan Allah urbuuxiye oo yiraahdo iyo sabraasad iyo
nin ku maahmaaha ee uu yiraahdo cadkaan uu ku cunay ama ku eedeeyey. marka waxaa waaye maahmaayahaasi isdiidan laftirkooda baryahan dambe dhaqankii ayaa waxay ku yeelatay lug oo ninkii sabraba inuu nacas u yaqaan, nina inuu imaan u yaqaano, nina haddee inuu u jidaystaybu fakitolkii kama janna tago uu leeyahay oo xataa cadaaladawadu inuu maahmaaqii asaga u qaadanayo inuu haysto, halka nina uu ka leeyahay tolkaayo ee xutoobadaa halaysaa. marka soomaalida dhaqan ahaan laftirkeeda ayaa waxay u baahan tahay in wax badan dib loogu noqdo. waxaa yeele waxa burburay ma aha darbiyadii iyo jigaaradii annaga noo dhisnaa, balse akhlaaqiyaadkii oo dhan iyo waxyaabihii laysku qadarin lahaa ama diini ha noqoto ama dunyawi ha noqoto ayaa burbursan. marka nin badan iyo nin yar iyo nin xoogya iyo nin tabar daran iyo nin samir badan iyo nin dagaal badan iyo nin maaragtay sidbursiina raadisa iyo nin wixiisii xaqiisii ka sabra, intaba soomaalida inay dib iskugu noqoto oo ayaga dib isu saxda mooyaane cadaaladii ayaa waxay ku jirtaa maanta god mugdi ah. dadkii kasoo saari lahaan haddaba dadka isku haysta meel weliba ee nin waliba aniga ka socota maaragtay. Professor, su-aasha ugu dambaysan jeclaan lahaa inaan ku weydiiyo waxay tahay Soomaaliya waxay soo martay dhibaatooyin badan iyo dagaalo badan 22 sano la soo dhaafay. haddana sida inoo muuqato ma jirto qof fahmay waxa marka hore isaga hor yimid ama marka hore isku dagaalay. ilaa hadda waxaa la wadaa sida hadda aragno wixii dhibaatadii bilaabay 22 sano la soo dhaafay. wadankan hadda waxay isku raaceen inay sameystaan wax la yiraahdo federalismo ama mataqaana gobol kasta inay maamulkooda ay sameysato. dawladda kumeel gaarka markii ay jirteen waxay magacaawday wasiir arrimo gudo oo qabanaya howlahaas. laakiin haddii aad eegto wadamada federalismaha ku dhaqmo badankooda ma laha wasiir arrimaha gudaha. waxay leeyihiin wasiir la yiraahdo wasiirka federalismaha oo mataqaana isku xira gobolada iyo degmooyinka iyo maamulka. ma sooran karnaa marka maamulkan haddana la sameeyay wasiirka arrimaha gudaha kaliya wuxuu noqonayaa mid dekreetooyinkiisa kusii badiya gobolada shabeellaha oo dadka mataqaana dhibaataysan iyo iyo bakool iyo dhulkan mataqaana ay degaan dadka aan ka hadlin dhibaatooyinkooda inuu mataqaana usii magacaabo dad aan u dhalan goboladaas. mise waa mataqaana wax la raba in cadaaladii iyo sinaantii soomaalinimo ay soo celiso qof kasta deegaankiisa gobolkiisa uga kaado. runtii horta ilaahay subxaanahu watacaala ummadiisa inuu soo hanuuniyo xaqa uu kusayso waxba kuma aha, laakiin dhaqanka hadda jira waa mid runtii wax badan u baahan runtii wax laga bedelo. hade waxa waaye roman hade waxaa la yidhi lam tubna roma fi yawmin waaxid. magaalada romana maalin keliya laguma dhisin, meeshaan burburintu way saalan tahay 22 sano iyo ka badan iyo ka xagga xataa 60kii marka laga soo bilaabo ayaa soomaalidu cadaalad daradooda la koysatay ayaa dadka badi soomaalida ay aaminsan yihiin. markaad fiirisid kuraastii markii la qiiminayo 60kii gobollo iyo degmooyin waxaad arkaysaa oo iyaga 5 jeer 7 jeer kusoo laablaabma. haddana degmooyinkaasi kuraaska la siiyey iyo kuwa markaa hadda iyagana markaasi loo qoondeeyey inaysan shaqo isku lahayn. magaaladii ayaa xataa markaasi waxay iska ahaan jireen baa lagu leeyahay dadkii deganaa dadaanan ahayn inay ayaga ay boobi jireen kuraaskooda ay kasoo geli jireen sidaana baarlamanka ay ku imaan jireen. waxaa kan cadaalad darada soomaalida waxaa moodaaba in talyaaniga iyo isticmaalkii inay u dhaafeen oo mar haddaa aniga afartay gadaashinayay degine sida afrikaba markii ay ka baxeen xuduudahooda iyo iyaga iyo maarta madaxa isu geliyeen oo wax qasan ay sameeyeen ay galwariyo. marka soomaaliyana meesha ay ka nugushahay iyo aakhiritaankeeda meesha laga dumin karo ayaa waxay u noqotay bartilmaameed inay waxuun aakhir saaca ama muddo maaragtay hadday jeeto inay dib iyada isu qabsato ayaa waxaad moodaa inay u ahayd waxa uu maaragtay istaraatiijiyad ahaan uu nooga tagay isticmaalka oo qabyaalada iyo maanta waxyaabaha la xiriira ee nidaamka qaabka daran ee gobol na dadka asaga ku nool ay jecel yihiin in ayaga aman loogu dhawaan xataa haddii ayaga ay shaqo bixintooda meesha ugu hooseyso uu yahay ninka markaasi xaaqa dhulka ee isbasiina loo yaqaana ku talyaaniga in aanan cid kale aanan la siinin dadka deegaankaasi mooyaane. halka deegaamo kalena ayaga ay isla dadkii doonayaan ee gobolkoodii in aanan qofkuna aanan iska siinin wax hawl ama wax shaqa ah haddana inay doonayaan inay iyaga ay noqdaan kuwa ka arriminayo ama
jagooyinka ugu sarsareeya kuwa maamulkaasi qabanaya inay noqdaan gobollo kale oo ana iyo shaqo ku lahayn. marka kaaga kulligii kayana ana iskale waxyaabaha dadka qaarkii xataa wax qora ay ku tilmaameen inay Soomaaliya asal u tahay dhibaatada taagan weli ama ana ka lug bixin ayaan dareemaynaa. marka haddii cadaaladda nin walba u aqoonsado sida ilaahay ummadiisa uu simayna qolo waliba u aaminto in qofka kale wax dheer aanan jirin wadankana loo timaado awoodaysigiisa kan siyaasadeed iyo kan dhaqaale kulli iyo wixii waxbarasho iyo loo halmaala iyo wixii markaasi shaqooyin ah maamul ah haddii wax laisku darsanayana si guud ah haddii markaa wax heshiisliya la samayso ama dowlad dhexe ha noqoto ama dowlad federaal ha noqoto waxunba ummadaas heshiis ay ku yihiin ay isku ixtiraamanayaan la dhihi lahaa. soomaalida federaalna iskama ixtiraamayso, dowlad dhexena waa taan horey usoo aragnay. taana waxaa sabab u ah sidbursiinada dadka qaarkooda inta ay ku fakarayaan ayaga in waxoodiina ayaga ay lahaadaan dadka kalena waxoodii inay la yeeshaan. waxay ahaanaysaa Soomaaliya weligeeda xarig jiib aan dhamaanin mid ku jirta isticmaalka iyo inta kale la hadalhayana markaasi waxay helayaan fursad ay kusoo dhexgalaan Soomaalidan ay markaasi iskugu dhiibaan wixii ayaga ay leeyihiin oo isku baabi'in karaan. marka ilaa marka la helo Soomaalinimo dhab ah wax isu quurid dhab ah isqadarin dhab ah cadaalad iyo sinaan dhab ah dhaqan diin dhaba iyo dal in maaragtay loo wada maaragtay dhan yahay nidaamkiisa iyo siyaadadiisa ama sovereignty-giisa oo dhab ah wax weliba calaama su-aal ayay iska taagnaanayaan. marka federaalka waxaa ka horeyso in heshiis lagu noqdo dadka waxay ku heshiiyaan haddana cid isku ixtiraamta isla markaasna laba gobol saddex gobol sida uu qorayo dastuurka laleeyahay wixii markaasi israaci kara waa uu markaasi samaysan karaan state. haddase laakiin waa isku dhex miran tahay dad baa waxay dhex degan yihiin gobollo iyo deegaamo haddii si Soomaalinimo ay kula noolaadaan walaalahooda Soomaaliyeed kale aanan diidanayn laakiin dadkii deegaanka deganaa ee hortoodii ku noolaa ee ilaahay meeshaasi u gartay inay iyaga ay ahaadaan dadkii asal ahaan meesha kasoo jeeday kuwiiba marka kuwa shalay tegay ama kuwa kale soo haliilayo doonayo inay dadkaasi meesha ay ka saaraan iyaga ay noqdaan marka kuwii meeshaasi ka ahaa maaragtay siyaadii marka idaa xalla safiiran fi ardi qawmin fama lisaakiniha siwa rahiil waa mida ka dhacday hadii Soomaaliya inay dad badan dibadaha ay u qaxaan boqolaal kun oo Soomaaliyeed xeryo ay galaan deegaamadii ay lahaayeen ay ka cararaan kuwa kale deegaamadii ay ka carareen wixii ay lahaayeen hantidoodii maalkoodii guryahoodii beerahoodii ayagana inay yimaadaan ayagana iska qaataan sidaa marka nin walba hilqad uu yahay nin Soomaaliya iska xoreeyaa ninka cadow shisheeye ninka Soomaaliga uu iska bixiyaa. marka Soomaalidii baa laftirkeeda in siyaabo fara badan la isku raadiyo waxa ayaa ka horeyso waxay heshiis ku yihiin intaanan dhisanin. haddii maanta la yidhaahdo ay raacaan gobol hebel iyo gobol hebel iyo gobol hebel gobolada qaarkood waxaa laga yaabaa inay fududahay inay israacaan maxaa yeele dadkoodii iyo deegaankoodii dad markaasi taladooda iyo arrintooda iyaga aan waxba kaga hadlaysnayn hadday isu yimaadaan ayagoo isjecel wax samaysan kara ayaa jira. dadna intaasi waa lagu dhex jiraa oo waa la kala hayaa oo divide and rule isticmaalka uu ka tegay ayaad moodaa in nidaam dowladeed marna loo adeegsado marna nidaam urureed loo adeegsado mar nidaam jabhadeed loo adeegsado mar nidaam xulufaysi loo adeegsado. hadba scenario cusub ee la leeyahay dadkaasi waa lagu wareegin karaa ayaa waxaad arkaysaa ayagoo lala dul taagan yahay. haddana waxaan jeclaan lahaa inaan kusoo wareejiyo walaalkay Ilyas. mahadsanid yaasiin abikar cali. dhegeystayaal waxaan ku guda jirnaa weli barnaamijkeenii wuxuuna marayaa qeybihiisa dhexe.
haddii aan su-aal weydiiyo aqoon-yahan doctor cali xasan cismaan cali xasan waxaad sheegtay in soomaaliya ay ku jirto ixtilaal oo aan madax banaani ay ka agdhaweyn kasoo bilaabo 1993 ilaa iyo hadda xildhibaanka dalxa hadda wuxuu sheegayaa dhibaatada Soomaaliya 20 sanaba in Soomaaliya ay iyada mas'uuliyadeeda ay qaadayso 90%. adigu cali xasan ahaan dhibaatada 20 sano soo jiitamaysay ma la oran karaa ixtilaal kale ma jiro Soomaaliya iyada ayaa qofku haddii gacmaha iyo lugaha laga xiro oo la yiraahdo saartana u dhaqaaq ma dhaqaaqi kara su-aashu waa maya marka waxa weeye wadankan waa hore loo soo ciil cunay dhibaato badan ayaa loogu talagalay in la sameeyo aniga 1978 joornaal Talyaani oo ka soo baxo panorama la yiraahdo ka akhrinay waxaa la yiri laba qodob yaa rabaa in adduunka laga suuliyo arrinta shuuciyada ah iyo diinta islaamka dagaalkaas wax badan soo jiitamay oo wax hadda maanta lagu jiro waxaa loo yaqaanaa New World Order George Bush ninkan odaga ahaa ayaa xataa ku dhawaaqay 1990 marka arrintaas Soomaaliya waa arrin diro ma hore loo soo tuntay loogu talagalay markaan ku leeyahay 93 ilaa hadda wax tilaabo oo soconaya ma jiro wax walba waxa lagu soo saaray resolution United Nations waxa kumeel gaarka Allah dhan waana lagu bislayna waana lagu jilayna marka xildhibaankaas oo sharaf mudan oo nin xildhibaan immunity haysta xildhibaanada kale la midka ah intaas way ku dhex jireen dawladda intaas oo dhan meeshii fadhiyeen waxaas kama doodi jirin dadkii uma sheegaynin way iska dhex batluqleynayeen mas'uuliyadda inta ugu badan hadda ayaga qaadanay sababtoo ah kullukum mas'uul wa kullukum mas'uul an ra'iyatiha nabiyyi soma marka ayaga shakhsiyadooda waa siin weysiinay waxay gartaan marar ka qayliyaan hadda biseelkii la gaaray waqti la wareegi lahaa bay ku jirta Soomaaliya maamul goboleedkan waxaan asheegaysan ma grand strategy waxa lagu socdaa goboladaas waqooyi xigoo dhan Itoobiya la rabaa in la siiyo goboladaas koonfur dhan in la siiyo maaragtay Kenya meeshaan xalaan xamar Amisom ta isaas u joogto islaam 10 sano dambe in ay u gasho iyada la rabaaba haddii mustaqbalka noqdo xataa Djibouti iyo waxana kulli confederation ay ku imaadaan kulli iyada laga xukumo maxaa jira waa ururka ugu weyn laga xukumo waa aragteen meeshaas Shiinaha u dhisay xarunta weyn oo meesha ku taalo Kenya waxa loo dhisay xarunta ugu weyn oo maaragtay United Nations ka maamusho halkaas go'da waxa markaas ma doontaa si weegan kaliya dhacday dadkii dhamaa oo Amisom ka socday ninka ka socda waa nin Djibouti oo Soomaaliya kan meesha warbixinta ka bixinaya waa ku kala Soomaaliya wafdiga socda waa Soomaali marka caawa sovereignty madax banaanidii dalkan caawa wixii dowladda soo maray madaxweyneyaalkoodii iyo prime ministeradooda iyo goliyaha shacbigooda caawa annaga raaciyada ka banaanka joogna ayaga mas'uuliyadda noo qaaday ayaga wax inay marar ka qayliyaan ay ka hadlaan hadda adigu ka qaylineen oo maalin walba qortaada lagu qalanayo adigu aad raalli ka hayn dabcan inaad heerkan gaarto laakiin mas'uuliyadda badankeeda Soomaaliya malaha international community ale waa lagu garba duubay nin la garba duubayna ma dhaqaaqi karo وما ان xildhibaan maxamed wardalxa waxaad sheegtay in dhibaatada badan Soomaaliya ay mas'uul ka tahay Soomaaliya gacantooda isku dilayso doctor cali xasan waad maqlaysaa dhibaatada ugu weyn isagana wuxuu u tiirinayaa adduunyadan kala caalamkan maanta awood leh ilaah baa awood leh arrintan hadda Soomaaliya gobolada Jubbooyinka qaasatan ka socoto kale maadaama baarlamaanka horna aad ka tirsaneed kumeel gaarka aad ka tirsaneed oo ciidamadii safka hore iyo ciidamada wadamada kale ab loo qaaday oo la ansixiyay inay soo gali karaan dawladda Kenya kama aysan mid ahayn ciidamadaas wadanka soo galay waaga oo Uganda ay horkacisay iyo Burundi iyo Ethiopia intaba
waxaan ognahay dawladda Kenya wadanka Soomaaliya inay iska soo gashay iyadoo aan codno loo qaadan baarlamaan la marsiin wala madaxweynaha saxiix laga qaadan wala golihii xukuumadii wasiiradii waqtigooda u dhamaaday iska soo galeen kadibna ay macquul noqon weysay oo la farsameeyay oo la dhahay haya amisom aan ku darno macquul ma ahaan dhibaatada inta badan Cali Xasan uu leeyahay caalamka ayaa ku haya mala dhihi kara waa runtiisa maadaama ilaa hadda xildhibaanada aysan ka hadlin qaabka ay ku soo galeen ciidamada Kenya Soomaalida ay ku maamaada ishiisa la arka ushiisa lagu tumaa haddana Soomaalida ayada laga helin ilnuurayl oo malayn maayo waxyaabaha faraha badan ee annaga aan ku eedayno caalamka in Soomaaliya maanta annaga aan u nisbayn lahayn maaragtay in lagu hayo faragelin ama dhibaato annaga Soomaaliya waxa aadan inkiri karin maanta Kenya annaga inta hadda aan ka tirsanayno markii aan isku samayno madiyaas oo hadii la yiraahdo Soomaaliya Kenya ma cadowbay u tahay mise saaxiibay u tahay xiriyaa dadaab marka adiga aad ka bilowdo codkaasi waxaan u maleynayaa jawaab ka badan muddo hadda annaga isku hayno ayaa meesha ay ka soo bixi lahayd oo ninka markaad weydiisid dadaab inaad timaado maxaa ku keenay maxaa kugu kalifay inaad halkaan lagaaga owdo ma aragtay xiriyo oo sidaan oo kale ah wuxuu sheegan lahaa Ilaahay baa yaqaan Soomaaliya iyadoon diinna isku dhowraynin dadnimada aanan isku ilaalinaynin dawladnimo iyadoo Afrika oo dhan iyada markaasi ay sanka ay ka haysato ayaa waxaan ognahay wixii iyada isku sameysay inay meesha maanta iyada ay taalo inay sababteeda iyada ay leedahay haddana Soomaaliya iyada aanan isgooynin ma aragtay adimaha maanta ma gurguurateen adduunyada shanta qaaradood ee ku nool meel waliba ee Soomaaliya maanta adiga aad tagtidna ayadoo qaabdaro ugu nool iyo ayadoo siyaabo kala duwan u fakaraysa iyo ayadoo dhaqan doorsantay iyo ayadoo laftirkeeda Soomaalinimada qaar ka faanayba xataa wad arkaysa iyo qaar ka cudbilaysanaya waxa meesha dhigayna waa garan karnaa nin qabiil looga saaray meeshaasi uu ku noolaa qaar la yiri iyagoo soo taagan shahaadanayo maartay ee wadankii ay oga baxeen qaab qabiil maanta aan ku soo qaadi karin hadii aad qarannimadii iyo wadannimadi ee adiga aad xusuusasid waxa adiga ay maanta ay ka tirsanayaan ninka kale ehelkooda aha ee Soomaaliga aha ee inay asaga isgarabsadaan ee cadow qura ay yeeshaan la wada rabay wata ayaa ka xun marka aan dhab ahaan u wada hadalno anaga runta ay isu sheegno oo Soomaali ahaan u wada hadalno waxa anaga aan ku eedeyno international community waxyaabaha ruuxa bani aadamka marka asaga uu gaajoodo oo walaalkii uu yahay kan dhibaatada asaga ku hayane waxa iska jirto mutidaysa hungry man is not free in gaajaysan gob maaha maanta jaaliyada Soomaaliyeed ee caawa igala hadlaysa Europe kuwa dadka Soomaaliyeed ee kii xataa waxay saraw inuu ku soo biiro uu yimaado maanta mar airport ka degi kartaa London adigoo nasiib leh ama ma ka degi kartaa Mareykan iyo maartay iyo Scandinavian ka iyo Koreanaya maanta marka cadeymana oo ismaan iyo bay iyo Bakool iyo mar jubada hoose iyo maanta dhulkan ee dadka kale ee gartay faa'iidadiisa inta maanta ku haminayso ee Soomaali aan u fakarayso way yartahay ee waliba inay ka sii baxaan ayaa waliba qaarkooda meel aanan loo mari karin nolol ay u sii marayaan bad iyo saxaare iyo dhul oo Ilaahay og yahay ay maanta ayagoo ka sii cararaya Soomaalinimadii iyo qarannimadii iyo wadankiiba maartay ee nacay ay ka sii taayaan waxa nacabsiyeena 190 waa Soomaali ama nin gurigiisa isaga lahaa ee dhaxanta ka seexanayo kan ku hoydana Soomaali u yahay hadduu subaxdii u yiraahdo Allah ma yajriyan u baahan igaga qax ama igaga bax ama beertaydi isi ee isaga la soo hortaagan yahay qori caaradii amxarama aanu maleynaya kaasi wuxuu ka soo cararay Kenya ma aha Djibouti ma aha
ugandesna maaha, burundiyaanna maaha, united nationkana maaha, golaha ammaankana maaha, international communitygana maaha. haddaan soomaalinimada annaga aanan la isku xaq dhowrin, oo aan diinta la isku xaq dhowrin, oo aan dadnimada la isku xaq dhowrin, cadow waa ka faa'iidaysanayaa meeshuu doona ka yimaado. laakiin dadka loo baahan yahay inay ayaga dowladnimada wax ay tahay macnaheed ay gartaan. saaxiibkeena hadda xildhibaanada ayuu saaray, xildhibaankii soomaaliyeed maanta waxaa loo dilayaa maxaa dowladnimo adigaad noogu hadlahaysa oo anaga sheekadeeda maartay. masaajidka laguma dhaafo, suxufiga maaragtay ee wararkaa soo gaarsiinaya ummadda meel ay joogaanba waxaa laleeyahay warka siduu meel dheer uu anaga waxaanan anaga raalli kayn uu ku bixiyey. habeenkii waxaway gurigiisa lagu miranayaa, meeshaasa dariiqyada loogu dilayaa. xalaygan oday dhaqameed wax wali aanan jirin baa muqdisho maanta lagu dilay oo malaaqa ah. sidaa iyo si lamid ayaa labeentii ummadda kii ku haray dalka ee asaga soomaalinimada ku mintidi lahaa ama wadanka u shaqayn lahaa ama isaga oo victim asaga uu u yahay inuu maanta dadnimadii dowladnimadii isaga inuu maartay magacaasi kaliya intay tirnaan lahayd ha tilmaamaato wadankii ku joogo ayaa handadaad ku nool waxa ku hayaan Soomaali ay tahay. كان حقله علي حسن بروفيسور وقوس لابنا علي حسن مركان أن كجذبنا إن عالم كفرجين نجوهايا عالم كفرجين نجومهايا أننا فرجين سكوهاينا هدي أن أصل لابنا أن جبوينك أن أرنتك اسمايو ما أنت ملفن مريسا أو قلها أمانك يا أرنتك اسمايو كدودا أو لهر دقي أن كسمايو حنوين لبعتن كسر وجودن بي إن دد صوماليات أم بقبيلها هذانو أم بدد يعني دنوا gaarka u cararayaha hadaan isku badbadalo un bay haajirtay. maxaa Soomaali ka batay maanta oo Soomaalida ka sii batay oo keenay in yani igad maanta ay interest badan daneen badan ay dareyso arinta Kismaayo maxaa keenay disoran kartaa adiga Cali Xasan ahaan inta horta su'aashaas ka jawaabo waxaan rabaa inaan point of clarification u cadeeyo maarta xildhibaanka waxaan u sheegayaa inta asaga hadda xildhibaan ahayn dawladda jirta Soomaaliya annaga 1960 ka dawladda qaadanay Soomaalida saana isu jirtay waxay isu jirtay war iyo gabar yar oo la kala kustaday iyo ceelal iyo waxba la isku dili jiray arrin dhaqamay ahayd saas intii la isu dilaa xaladana xalisay jirtay waxaan isdilkaan ilaa heerka soo gaarsiiyay oo inta lagu daadiyo asoo cuna qabateen qabo oo balaayada waa qorshe loogu talagalay leeyahay xildhibaankana mas'uuliyadiisa haqirta caawa haqaato taada kale dadkan uu leeyahay xuduudaha ku daadsan kulli waxaan oo dhan waxay ku joogaan convention Geneva waxa waa qaramada midoobay waa hore la saxay dagaalkii labaad adduunka annaga Yurub koona joogay ku Ameerika joog convention Geneva ku joogna waa kaas xarabmayna qaadato mana qaadanayso xajir convention Geneva ma aysan waa qorshe lagu talagalay halkaas lagu laasmijinaa hadayna waa magacaabay xarunta ugu sareyso United Nations meesha joogaan international community girigiri alida uu yaqaan baan u leeyahay xildhibaanka girigiri xafiiska soo weyn meesha laga maamula waxaa joogta 73 NGO ilaa 33 oo local ah yaa meesha ka wada faa'iideysto iska dhuuqa على حسب وقت أنا أنا أكون فاهم سؤال شان كويدي وسي جذب الله عليا سؤال شمر كانوا يسون حتى كلارنا وكورد لي وحنكو يري لين دليل أوبريشن كان كيني وضعته يا وحنا دكتم بيا وحكتم بيا بترول كي يزون كل شيء يا هالك أسكري عليه شركة أو أما فرنسيس كان نقولنا أما أمريكان كان نقولنا أما نروي كان نقولنا أما إيطاليان كان نقولنا كان فرنسيس كو توتال لده كان أمريكان كو أندروك لده كان نروي كو إستايل لده إيطاليان أو ENI لده انت عارف دياروا ايزون خاص انك خصلان مشروع كلا كده بحرن او لامو laga sameeyay lamsel lado waa lamo port south sudan ilaa halkaas ilaa Ethiopia tarani aduna loogu talagalay waxa soo la isku xiro waa qorshe balaaran oo weyn grand strategy la dhaha professor Mareykan ka hadlay waa idin haya detailkooda hadii waqtiga lagu simo waxa soo dhan waa idin sheegi kara qorshahaas ka dambeeyay inay ka hadasho maxaa keenay mas'uuliyadda marka ay lahayn xildhibaanada iyo muxuu ahaa Prime Minister kumaanta waa magacaabina iyo madaxweynaha ilaa hadda kama aysan darinin waxa la yiri waa Kenya la hadlay waa bal arintaas waa baarina la yiri iyaga la yiri hadda hala qaado wixii waa la raray 10 gooniyo lagu raray 270 kiish maanta kaliya la raray waa baxday halka loo wada United Nations naftirkeeda oo warqada qoraalka qortay baan gareysay oo ka celisay halka islaamka hadda loo wada
banaanta boqol mar uu ka hadlay wasiir ku-xigeenka koowaad ee maaragtay ku-xiga Odinga Mudavadi la dhaho uu ka hadlay Kenya ilaa goorma ku jiraysa in jasini dooyir waa lagu celiyay arrintaas boqol mar laga hadlay waa ku sheegay baarlamaanka xataa ma isu ansixinin ee maaragtay soo gelitaanka wadanka marka Kenya ayaa meeshaas ku amar ku taageeraysa dadkana waa ku daabayna hadii nin doon raaxay weligiis waa jiri jiray iska daa umadaane nabi maxamed oo joogo ya useemada kaalib uu sheegtay inuu yahay nabi yahay uu sheegtay oo la soo dowra xalasinaay marka weliga munaafiqa iyo dadkooda waa jirayaan mana la weyna adduunka intuu ka dhamaanay waa jiraan marka xildhibaanada iyo wasiirada iyo madaxweynaha xilkooda ha qaataan arrintan ha ka dhiidhiyaano maanta meel sugan ha geeyaan haddii kale saan ku sheego wadanka ixtiraalku ku jira halkaas uu ku socdaa okay xildhibaan Balxa waad maqlaysaa aqoon-yahaniin fara badan oo Soomaaliyeed ayaa qaba fikirkan arrimahan Kismaayo iyo gobolada Jubbooyinka in yani ay ka gaabiyeen xildhibaanadii iyo madaxdii ugu horeysay dalka aysan si cad aysan uga hadlin ilaa hadda idinku waxaad tihiin xildhibaanadii u dhaartay wadanka qaranka Soomaaliyeed u dhaartay ummadda Soomaaliyeed inay badbaadinayaan iyo dalka intaba arrinta idinkaga aadan dhibaatooyinkan ka jira guud ahaan Soomaaliya qaasatan gobolada Jubbooyinka muxuu yahay ilaa hadda kama hadlin arrintaasi waxaan filayaa إمام شافعي وحي عين الرضا عند كل عيب كليلة وعين السخط تبدي المساوية عنده هدي أي وحي مهديين وحي إسكشيغان مرودي وحي حمانتا يقفك أي أورجيغان لكن سي يقفك أي جاهلين حتى بيعيبوا إليها ما كانوا وناجي سأي شيغان كان كل وحواي هذه دولته مع قف إسكن نعب وحواي هذه وحقبت يدي وحقبتين بو وحاو موقع أبيضا لكن نجي دولتنimo asaga maartay marka garanaya jecel maartay waxa ay kala maqan tahay in ku hayso xanuun wixii ay qabteen xildhibaanada iyo dawladda maartay ka horeeyay wadanka meesha ay gaarsiiyeen dadkii khayraadkiisa boolay wadanka burburiyay maartiisii raray warshadihiisii dibadaha ka iibiyay ummadiisii qaxiyay meel waliba maartay ka tuuray Soomaaliya dhibaatadii ay geysteen arkimaysid dad dhaliil u hayay hadana dadkii from the scratch ka soo bilaabay meel aan xafiis oolin meel aanan ciidan qaran ka dhisnayn meel aanan askari boolis ay joogin meel aanan shacib ka jirin ninku ka xoog baday wuxuu doono uu ku sameeynayo maydkii la dilay xataa xabadihiisa la isweydiinayo oo intii ninkii wax laga dilay biyo la siin lahaa aniga xabadaha aniga aan ku dhuftay si qaybteeda ama maartay ma aasan kartid ma duugan kartid ilaa aniga aad iga siisid maartay waxa aniga aan rabo inaan aniga maartay aan ka qaado waxyaabahaas oo dhan taariikhdii la soo maray dhan baa waxaad moodaa in dadka qaarkii aanan doonayn in la soo qaado ama in la soo dulmaro dawladnimadu way duntay maxay looga duntay yaasana baday inta la sheegay ee dhibaatada hadda anaga Kenya gadaashii inay qaadatay xorriyad 1963 bay qaadatay Soomaaliya 60 bay qaadatay waxa dadkeena maanta anaga inay xiriyaha maantay Kenya inay gacanta ay horsadaan maantay keenay in anaga gabdheena lagu kufsaday meesha keenay waxa anaga inay caruurteena iyo gabdheena kuwa maanta ugu quruxda badan in Tanzania beeraha lagu fasha keenay waxa hableen in loogu umaliyo Liibiya maanta inay maanta ay xabsiyadooda ay dhaxjiifan keenay waxa caruurteena ayagoo badaha maray inay maanta dunya ay hayba dhaxdooda ay ku dabayaan yaaba kuwa maanta Europe iyo America ayaga nolol fiican bay haystaan lagu tuumayo xataa laftirkooda waxa ay ku nool yihiin anaga qaarkood aan aragnay gaarsiiyay heerkaasi anaga maanta waxa Afrika aanan soo marin bal ama kuwa dariska nala xildhibaan ugu dambeysay waxa waay marka anaga aan fiirino hadaanan anaga aanan qaadanaynin shacbiga Soomaaliyeed asaga boqolkiiba 80 xumaha dhexdooda ayaga laga abuuray ayaga isku baabi'inaya maalin walba aniga ka fiican iyo aniga ka roon iyo aniga ku haboon waxa meesha ka taagan hadda maanta tan ugu dambeysay mayd maxaa ugu dambeeyay kan hadda la sida Jubbooyinka kaliya lagu soo halqabsanayo Jubbooyinka dadkii ku noolaa shabeellooyinka dadkii ku noolaa maxaa
maxaa diiday ummadda Soomaaliyeed inaan ka mid ahayn maxaase ay u qiimeyn laayiin dadka kale ee walaalahooda ay had iyo jeer doonaya inay ayaga bursiina ay doonaan ay raadiyaan hankooda uu ku salaysan yahay in had iyo jeer ay noqdaan kuwa wax waliba ayaga ku roon dhaqaalaha ayaga gacantooda ku roon waxbarashada ayaga kaliya oo ku roon talada ayaga kaliya ku roon wax kasta oo ummadda Soomaaliyeed ay ka wada dhaxay in ayaga mudnaan ay weelaan dadka doonayo dadka marka la soo adeegsanayo waa kuwa dalka in lagu burburiyo waa kuwa aqoon-yahanada lagu leynayo waa kuwa maartay waxgaradka Soomaaliyeed in lagu qaxiyo loogu talagalay waa kuwa masaajidada maartay aan laga geli karin ee ummadda Soomaaliyeed ee xataa inay ka cararaan maartay cibaadadii ayaga maartay ee lagu soo falaalay waa kuwa adigu haduusan haysanin nin Soomaaliyeed u kaalmeeya kumana dhaco annaga waxaan ognahay wadaniyadeennii iyo qarannimadeennii markaan si sax ah wada hadalno askariga Itoobiyaanka marka asiga bangiga hor istaagay markii jabada uu ahaa way isii badbaadsaday annagana waa boobni markay maantana waxa waaye wadaninimada waxa uu cadcado uu sheegay badan dadka ugu dhibaatada badan ee dadka Soomaaliyeed meel ay kaga harsadaan aan la garanaynin si wax loogu sheegana aan la fahmaynin had iyo jeerna iyaga qaylada ma aragtay oo hasha intay wax neeriyada intay dan shacabada ee dhiijay annaga Soomaalnimo aan dadka isugu sheegno waxa annaga naga halaysan annaga aan iska halaynayn aan ogaano in Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid ilahi ummadiisa mudulminayo annaga ilahi Itoobiyaanka naga ma jeclaanay ilahi Kenyaanka annaga inuu naga jecel yahay ma ilahi annaga wadankii kala ee Djibouti annaga ay walaalahayna inuu maanta cirka uu maray caadaas annaga inaan saxadaas aan fadhino ilahi annaga nagu ma xukumin waa waxaan annaga aan sheegnay ilaa annaga aan iska beddelno dhaqanka annaga aan caadaysanay sida Soomaali hadda ay u taalan ilaahay naga bedelay waana lagu salidayaa dulmiga markuu bato wax ka xoog badali wax ka xumbo ama hatta xaakim daalim Allah ka dhigo lagu salidayaa laakiin waxaan sheegaynaa annaga dadka dawladda kaliya inay eedeeyaan ayaga ay saaxiibadeena ama walaalahayna ayaga kaliya aad moodeen ay furan tahay wadanka qofna markii loogama aha la yimaado wadanka marka kadibna talada iyo ra'yiga fiican ee looga badbaadi karo in adiga walaalkaaga nin shisheeye ka ilaaliyo oo maalin walba adiga burindiis uu ka bixiyo nin ehelkaaga ama nin sakayaaga ama nin Uganda adigu ka xisado midka walaalkaaga ama ma atay adiga naxinkaaga ahaan laha ina adiga uu yiraahdo ayaan soo kala celcelinaya kuwana kala qabanaya sidii wuxuusti annaga wax darajadaas ina gaarsiin huwa arday madatay waa ina isweydiina waxa aniga walaalkayga aniga nin shisheeye iga celcelinaya waxa aniga walaashaydii aniga aan leeyahay celcelinaya oo aniga maalin walba go'aan sidii aniga ilaa gabadha Soomaaliyeed xildhibaan waa mahadsan tahay barnaamijka waxaan ku guda jirnaa gabagabadiisii dambe haddana waxaan ku wareejinayaa dhegeystayaal saaxiibkay Cabdicasiis Maxamed Axmed dhagacada oo ku sugan Sweden Cabdicasiis mahadsanid Ilyas Qalin Professor Dalxa mar kale haddaan ku soo noqdo dabcan waxaad ka dhawaajisay in aad meel hoose ka soo bilowdeen أي علي حسن كسعه اللبانك وحو مرور بأد سارة شعبنا وحوا دادكن وشيغاي او قراءة فرطي بلايد سميي وداد ريضة وحبوبي وانا نمانك عن كسوين إنا حلباننا موشنك كينان او لقيا حيكين لقيا انو باهنا نمانك وولورك نمانك ودك عدباتنا كيسا لكن نمانك شعبي اسكادي غايانا بنانكا شجوغاني وحانا مسؤولين دا اما أنا أؤمن من الشعب الصومالي الصومالي يورور كم الصومالي ولا شيء يورور الصومالي أنا جبتان نقول أنا وداتان نقول أنا ورور نقول أنا مدحان نقول أنا الصومالي ولا يسوق الدنيا عن هذا الناس طلع مركع السنة مسؤولين عنا أيها الإدماني ما دام شعبنا أيها وحرنا عرما سكرين موجودة كانت يقوديان لكن ما أنتم مسؤولين دي لعين اسكوا رجالنا ذلك لو حنوشي وحن لو متلقلي أيان دوز مركي كينيا دغالada isku saadeen doorashadoodii isla markii waa la dhaxgalay waa ogeedeen maxaa kamid ah Ethiopia saas kale ee markii Ingiriiska ka baxay waa la qabtay hadaa la qaban lahaa waa dhamaan lahayd Liberia saas kale Lebanon waa xastaan Kosovo waa xastaan Sierra Leone waa xastaan Cambodia waa xastaan Bosnia Liberia waxa soo dhan loo kulmay annaga waana lagu fiirsaday adduunka loogu talagalay waana lagu fiirsaday soo wax garatayna marka in Masri oo khabiir ah oo Ahmed Shakir la yiraahdo oo ka hadlay maartay TV ga la yiraahdo
دكتور علي حسن وان كوسو نقون دونا وحير iigu jir بروفيسور دلحة ma la oran karaa xildhibaanadii Soomaaliyeed iyo dawladii federaalka oo maanta laga sugayay 4 sano oo waxqabada iyo inay dalka ka saarto xaaladaha murugsan uu ku jiro dagaalada iyo waliba gaajada iyo dib u dhaca xagga bulshada iyo horumarka in ayba gabtayba qarannimadii Soomaaliyeed inay ilaaliso maadaama magaalada Kismaayo oo caasimada intay u jirta aan ognahay ay ka talinayaan xoogag dawladda inay la jiraan lagu sheego balse ka jiro iyo waliba ciidamadii Kenyaanka oo qalabkoodu u dhan yahay diyaarado wato doonyo wato maraakiib wato taangiyo wato oo magaalada Kismaayo aad u malaysidba in ay ula wareegeen sidii dal ay ku soo duuleen oo kale in dawladii Soomaaliyeed ay gabtay qarannimadii ilaalintii qarannimadii Soomaaliyeed waxaan filayaa waxaan arag wax ka sii shisheeyaan fiir ee Soomaaliya tirada Kismaayo magaalooyin fara badan ee Soomaaliyeed oo muhiimadooda leh ee dawladuna maanta waxay ka qabatay iyo heerka ay marayaan haddii la qiimeynayo waxaa tusaale idinkugu filan Muqdisho oo shalayna qashinka xataa haddii dad wala ku saala yiraahdo oo bil jiray ama qoris soo qaadan jiray oo qashinka yahay taaban bil jiray maanta waxay maraysaa in madaxweyne lagu doorto minister iyo xukuumaddiisa lagu soo dhiso baarlamaan lagu doorto odayaal Soomaaliyeed awood kastaba markaasi ha ku timaado aqli kastaba ha loo adeegsado 16 degmo oo marba reer dhinaca maartay u eryanay dadka inay si Soomaalinimo maanta magaca adduunka in xamar ay tahay meel ay dawladda Soomaaliyeed ay gacanta ku hayso ayaa maanta waxa loo aqoonsan yahay dawladda rasmiga ka jirto si qof waliba maanta aan ka daadsanayn goboladana maanta ee dawladda iyada dadaalkeeda iyo idil la qaashanaysa oo la qaashatay maanta in la soo hadal qaado Kismaayo ayada gaarsiisay oo ciidamo oo maanta dawladda Soomaaliyeed ee astaanteeda wata oo xooga dalka Soomaaliyeed la yiraahdo inuu Kismaayo loo ku yeesho meeshii shalay qabiil iyo urur iyo maarka iyo dad gaar ah oo ayaga ay ka arrimin jireen in laga hadlo qorsheeda oo cid waliba iska maanta waxay doonta ku sameeynayay ee ayada markii ugu dambeysay fikra maartay saacad looga wada jaray wixii ku taal ee kala yimid maartay wadamada khaliijka ay u mareysay xisaabtaasi in dawlad tiraahdo lama jari karo ama laga soo celiyo ama lagu soo celin in dareenkaas iyo hadalkaas u yimaado waxa gaarsiiyay ragga wadanka u babacdigay 22 sano in dawladnimo raadiyaan ee wadanka ay u raadiyaan sharci iyo kala dambeyn iyaga ay u dhisaan qarannimo ay u dhisaan walaal dawladeed ay u dhisaan meel loogu soo hagaago Soomaaliya iyo dad laga hadlo ay u sameeyaan haddii xataa sharci ay timaado adduunka علي حسن وحير فرصة حلوانك علي حسن أنا قد أقول مسؤول البرنامج مركزي يجيب على الجري فإلى يجربان لهم مسؤول من البرلمان بأفريقيا أيام النوع يرمى ذاتيا ولا أمانك برلمان الصومالية بأن في شيء مثل يري حيث الصومالية يبدأ الصومالية كهذا كتبوا جد عن برلمان الصومالية جاريبة ما تأيي المسؤول شرع الإسلام بالوضع مسؤولين الإنجيل برلمان الصومالية مركز من برلمان الصومالية يروحوا في السورية يروحوا قالوا يروحوا كذا على الأولين لو سائر وأنا في برلمان هذا نصيب ولا حمل بأي جزء اللي عمله فاهم لكن هذا وحوي ما بكون يجي وحوي كسر إلى سنة يصير ما هذا وحوي ما يجي ماي ما لكن إمام وحارس وكسر هذا يرد ويكمل يعني سوري مركزي waxaan soo gaarnay qaybihii ugu dambeeyay barnaamijkeena amuuraha Soomaaliya oo ay ka qayb qaadanayeen toddobaadkan Professor Maxamed Cumar Dalxa oo kamid ah xildhibaanada Soomaaliyeed iyo waliba Dr. Barnaamijka ayaa waxa ila daadihinayay saaxiibkay Elias Qalinle iyo waliba Yaasiin Abikar oo ku kala sugan magaalooyinka London iyo Toronto tan iyo intaynu dib ku kulmi doono barnaamijkan barnaamij la mid ah waa anigoo ah Cabdicasiis Dhagacade oo idin kaga tagayo sidaas iyo nabadgelyo ismaqal dambe oo xiiso leh